هدي إلى صراط مستقيم نك أمة القرآن كأغويرا إيه هذا والقرآن كنا هم برنو والقرآن كنا هكون دقنو والقرآن كنا أمة هنقارسينو والدين تنا هل نجاركو والدين تنا هكسقينو والدين يردو دين تهكون دقتو وارجبدو دين تهكون دقمان وصد القرآن كويري هنقص عنه نك صد على أمة الخير قال ده السعدنا هدي إلى صراط مستقيم طريق مستقيم كقول عيب رسول كويري قرآنك وكلامك إلهي إن قرآنك درجة أقصر رئيس جنة حضاضون إن هذا الشيء وأنا نقطة حامل القرآن نبي صلى الله عليه وسلم صحابة السمر قد قال لها معركتها اللي قد له الصحابة أي دالان داوع يكو نفيس أي قبورها قد كروايان لبن صدح نبال اسكور ذي هالقبر كلية ولكن نبي أيو قدم أي وحاو رجل حامل القرآن كيف أنت ضبط القرآن هيا كان القرآن كيف بدن هيا كابو نبي قبر كده فيه الرسين جري لبدا الجنازة مركا اللي قلت كان أينا فوق هذا وحي شيئان حافظ القرآن كا أي حق النبي قال صوم رجري مركا أبو النبي قل صلاة الجنازة كنت كجري لأن قرآنك قيمك يا ليا قرآنك أدبيد أدوكو هجاجنا يا قرآنك ودين تنا الإسلام كهذا دين تنا كشقينه أمبرنه أو كل غنور كل عمل فلو دين تكربي نقاد يدوكن يا خربا لكن تبدون ما أنت مسلمين وحيو أركانبا دين تبرشة ده دبوا دعنه هو أركان دبوا دعنه دبوا دعنه هو أركان لكن كقالة أيو معلومات كقالة يدوك قصة كردية نك برتينا أوه نك روانين جامعي والبحر مقالوا فنان برضو فنان وما أدراك ما فنان خبير والخبير بالغورن جيس أفريقيا اسبدل كان دعيو كفالوضا ما سجوده ما ركوعه طهارة ما يقانو محو خبير كو يهي مركا سياسي بالغورن سياسي جيل واكن سياسي جيل سياسي معناه ما تقانا ولا بوجيله كان ورك لو شيغي كان ورك لو شيغي شريعتنا والنفاق بو تقانا وحص نفاق مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء سؤال مودن سياسي معناه والنفاق شريعته waxay ku qabto muuminku been ma sheego muuminku dadka isku madiro la yadkhulu aljannata namam ba nabigu namam nika daraalehe dadka isku dira janna ma galabu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa fi hadith akhar لا يدخل الجنة قاطع نك قرابتي سرحمكيسا gooyay janna ma galabu nabigu yiri nika been alahana muumin ma noqon kara rasuulku yiri been ala muumin ma noqon karo wala weydiiyay nabigeena muuminku bakhayl ma noqon kara way dhici kartaa buu nabigu yiri muuminku fula ma noqon kara haa uu noqon kara muuminku been ma sheegi kara ma sheegi kara buu nabigu yiri inagana been alaha magac cajiib loo bixiyo ma taqaana waree magaal baa lagu oran waa magac Soomaalidu bixisay kadab ayaa la dhaw waree magaal ninkaas aftaan aakhira aftaan ku noqdo aakhiro اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون افكار الله حدنا بيان afkan ayaa laga qaban doonaa marka qiyaamo markii la soo saaro ee kitaabkoogii la hor dhigay leeyahay amalkan adu ma sameyn beentan adu ma sheegin ummadan adu iskuma dirin dhiigan adu xaq darro uma daadin meeshan macsiyo kuma sameyn kan xoolihiisi ma dhicin kan ma nadxaman yuleeyahay marqaatiha la keen marag hal ugu furo markaas ilaahay jalla wa ala وعزيز في ملكه عزيز غالب على أمره أفكي وكهل لغا خري بالي دولكا hadli oo gacmaha hadli oo lugaha hadli oo bowdadiisa hadli أن تشهد الأرض على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها تقول عملت كذا في يوم كذا وكذا دولكا مرق فريا دولكا قعنتها هليسا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم
walaakin danantum ana allaha laa yaclamu kaiira mima tacmaluun. may filayn, maanad filayn baa la odhan doonaa. maba soo dhiganba meesha inay jidhkaaga laga hadlini doono, oo hariggaagu hadli doono, oo maqalkaagu hadli doono, oo indhahaagu hadli doonaan, oo lugahaagu hadli doonaan. maad filaynin, laakiin nidaamka ilaahay baa adduunyada ka taliya. adduunkan waxaa samaynaysa waa lagu arkaayey, maantana waxaa kugu marag furaya jidhkaagiibaa maraga kugu buuxinaya inaad beenaalo ahayd, oo faasiq ahayd, oo faajir ahayd, oo daalim ahayd, oo caasi ahayd, oo mujrim ahayd, oo namaam ahayd, oo qiibada ummadda aad xamanaysay, oo ummadda aad gubaysay. jidhkaagaa kugu markhaati furi doonaa la odhan doona. waa kana dhegayso. halkuu u baxsan karaa qofku maalinka qiyaamaha? kan la hor taagan yahay waa kuma? kan la hor jooga waayo? allahu rabb alcaalamiin. waa maaliki yowm iddiin weeyaan. maaliki yowm iddiin, ilaahay baa la hor jooga. allah muslim iyuu ilaahay kaa dhigay. war muxuu ilaahay naga dhigay? muxuu ilaahay naga dhigay? sheegade. huwa samaakum lmuslimiina. sawd lama dhihin. ilaahay baa magaca inoo bixiye ogow. muslim baa tahay. muslim macnaheega markii la macneeyo waa maxay? waa mutiic. waa midka 24 saacadood rabbigiisa u hoggaansanaya, adeecsan. sida miskiidka dhexdiisa uu ku yahay muslimku, ayuu meel kastuu joogana uu ku yahay. miskiidka dhexeeda see ku nahay? muslim. salaadii buu tukan, been sheegi maayo, qur-aan buu akhrisan, ilaahay buu baryi, dadkuu salaami, dadku qof dhibaato miskiidka ku dhexsanin hadduu arkana meeshu waa miskiida xishoood buu ku odhan. laba isyar haysta hadduu arkana wuxuu war meeshu waa miskiida xishood ah. masaajidka sida muslimku uu ku yahay ayuu meheradiisa ku dhex yahay, reerkiisa ku dhex yahay, safar hadduu yahayna uu ku yahay. waayo adduunyadan aad arkaysaan waa qol keliya, qolkaana ilaahay baa iska leh. marka ilaahay inaan u soo noqonno weeyaan, oo diinteenna baranno, oo diinteenna ka shaqayno, oo diintu siday kashkeen iyo laabteenna ugu iman lahayd waa inaan diinta ka shaqayno. nabigeennu sal alla alay slam diinta uu ka shaqeeyey, saxaabadiisuna diinta way ka shaqeeyeen. diinta may sheeganayn iyakuya way ka shaqaynayeen. maal bay ku bixinayeen, dhaqaalay ku bixinayeen, fikir bay ku bixinayeen, dadaalkoogay ku bixinayeen. waxay arkeen diintan inay iyaku ay leeyihiin, oo liibaantoodii iyo cizigooga sharafteedii diinta uu ku jiro. bani aadamka adduunyada joogana waxay fahmeen inay diin u baahan yihiin. dada markaasay qaadeen risaalada meel kastay gaadhsiiyeen. oo nabigeenna sal allahu alayh wasalam ayaa ku dhiirigeliyey oo yidhi aniga nebi igama dambeeyo, ininkana ummadan igama dambayse, ka shaahidkee maanta halka ila joogow buu nebigu yidhi kiina maqan diinta gaadhsiiya buu rasuulku yidhi. fii xajati alwadaac adduu cannii raximakum ullah. allah inii naxariistay xilkaa qaada oo ummadda iga gaadhsiiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. oo ragga saxaabada rasuulka nin walba halkii uu ka yimid buu nebigu u diray. maantaan ka hadlayay tufayl bin camr addawsi magaalada makuu soo galay. shaacir gabayaaya ayuu ahaa. quraysh baa jidka u fadhiisatay. markaasaa la dareen geliyoo lagu yidhi magaalada maka waxaa ka soo baxay muxamed oo dadka sixraaye, hadalkiisa ha dhegaysana dhegahaaga ka furayso. cutub intuu qaaday baa la yidhi qutun ayuu dhegihiisa ku fureeyey. markuu dhexdaas soo maraya buu yidhi wanio nin caaqila oo shaaciroo gabayaaya ayaa tahay, nin la qaldi kara adigu ma tihide, maad dhegahaaga iska furtida. dhegihiibuu iska soo furay baa layidhi. markaabuu magaalada soo galay. dareen baaba galay. markaa wuxuu arkay nebigeenna sal allahu alay wasalam oo kacbada agteeda salaad ku tukanaya. dadku siday u socdaan si ka duwan buu nebigu u socdaa. dadku siday u caabudayaan ilaahay ee shirkigooga ugu sugan yihiin si ka duwan buu nebigu ilaahay u caabudaya. markaasuu alag fadhiistay buu yidhi, qur-aankuu akhrinayaabaa qalbigaygaga dhacay buu yidhi. markaasaan is idhi waniow maabad u tagtid oo ninkan aad la fadhiisatid oo aad wareysatid. wax saxa hadduu wadana aad maqashid, wax qalada hadduu sheegana qaladkiisu adiga waxba kaa qaadi maayo. markaasaan nebiga la fadhiistay sal alla alay wasalam. markaasaan ku yidhi